بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. ولا ليال عيدا 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 عيد وناكسن عيدا سمية عافمات كعيدا عالمك ميلو البعد كجوكتان. ولا ليال مانتا ومالين وين oo muslimiinta caalamka meel walba kaga nool yihiin farxad gaar ah u leh. waa maalintii cunida iyo cabitaanka, waa maalintii catarka, cuudka iyo ciyaarta, waa maalin ciroole iyo caruurba isku soo baxaan. walaalayaal, maalin walba muhiimad gooniya leedahay. maalmaan hadda soo dhaafnay barakaysan oo tirsanaa bishii Ramadaan, ilaahay baana ku mahadsan ننوليي نوافجيي إن أنا مارتي بشهر رمضان أن كفايدي سنو. ربنا وحن كبر يا إنه عمل كأني سوبنا أو أن سمينا نجا أقبله. ولا ليال مانتا وما نعيد وحول ببربس يولتشد إليهن مانتا ولتشد أقومهم محوية مسلمين تو إنه فرحد وذاقان مركو وحن شعلها صدق حرمود. وأن أجهي إن كل يبان إن هدان سمينه، وأن أجهي إن فرحة يسعادة يليبان يمارتي رايرين أو دن إنه إيمانس إن كله وذاقو. سدح الأهرمود قضب كوجه الرية إلا وحول بوحنا نقول تشدي لي هنا وحربنا فرحنا مركا شيء كوجه الرية وحوي oo aad u baahan tahay inaad farax geliso, oo aad u baahan tahay inaad u hambaliyeyso, waa adiga naftaada wax ka qaalisan ma laha. naftaada wax ka qaalisan ma laha. naftaada la rabaa inaad maaragtay aad u hambaliyeyso oo aad farax geliso. waxaa la rabaa qof muslinaad tahay oo ilaahay rabbi abuurtay oo rabbi uu jecel yahay raxmaan ah. rabbina dadka mu'miniinta ah si gaar ahaaneed ayuu ugu naxariistaa. wakaana bilmu'miniina raxiiman. wax allaale wuxuu rabbi kuu qadaray maanta waa inaad ku qanacsan tahay oo aad ku faraxsan tahay. xaalad walba aad ku jirta maanta, hadday maaragtay san tahay oo wanaagsan tahay iyo hadday maaragtay sicil iyo saxariid iyo dhib ay tahay, waxaad ogsoonaataa kow sida hadda bisha barakeysneed ee noogu bilaabatay oo ay u baxday inay balaayo dhan u baxayaan, oo wax meel iska jooga oo taagnaada ma jiro. adduunka dhan baa socdaal iyo safar lagu yahay. marka naftaada qanci oo waxa ku qanacdaa qadarta Alle subhanahu wa ta'ala. wax allaale wax hadday maanta kugu sugan yihiin oo aad ka sheeganaysa مثلا xaq caafimaad, oo aad ka sheeganaysa مثلا xaq maartay cayrnimo iyo maartay hanti maal aad ka sheeganayso, ama xaq maartay cilmiga iyo aqoontii aad ka sheeganayso oo hadda iskuulkii مثلا aad struggle aad ku jirto, loolan iyo halgan aad ku jirto tacliinta xaggeeda, ama maartay loolan iyo halgan aad ugu jirto xagga dhaqaalaha, ama loolan iyo halgan aad ugu jirto xagga caafimaadka. wax walba aad maanta struggle aad ku jirto, waxaad haysataa rabbi ra'uuf ah, wuduud ah, raxiim ah, oo labadii adiga ku dhashay ka jecel. xaqiiqatan labadii adiga ku dhashay rabbi ka jecel ayaa haysataa. marka waxa ku faraxdaa inaad wax walba ku sugan tahay maanta dhib ah ay dhamaanayaan oo ay bixi doonaan. taas ku faraxsanow oo naftaada ku qanci. waa kow wali qodob koobaad ku jiraaye haddii rabbi kuu nimceeyey oo ilaahay uu ku siiyey maaragtay caafimaad, oo ilaahay maaragtay cayrnimo kaa badbaadiyo hanti ku siiyey, oo maaragtay aad caruur haysato oo aad reer haysato, waxa weeyaan rabbi subxaanahu wa ta'ala kaga shukri oo rabbi ku mahadi. caruurtaada ilaaha kuu barakeynaya, hantidaada rabbi baa kuu barakeynaya, cimrigaada rabbi baa kuu barakeynaya, caafimaadkaada rabbi baa kuu barakeynaya. rabbi subxaanahu wa ta'ala ku shukri. la in shakartum la aziidannakum wala in kafartum inna cadaabi la shadiid. xaqiiqda saas weeye. haddaan rabbi ku shukrinana rabbi subxaanahu wa ta'ala mid mahadiya oo noo ziyaadiyo weeye. haddaan ku gaalownana nimcadaas hadhow nuqsaan bay noqonaysaa, niqmay noqonaysaa, cadaab bay noqonaysaa. marka waxaan aan ku leeyahay qodobka koobaad ilaa waxaa la yiraahdaa kullu ina'in bima fihi yamdah
weel walbaba waxa ku jiro dhidida haddaa adiga aad qof mu'mina oo qadaha iyo qadarka alla ku qanacsan aad tahay oo rabbi wuxuu ku siiyey oo wanaagana ku mahadiya wixii dhib ahoo kuu keenayna maaragtay ku sabra haddaa tahay farxad kaama maqna waa faraxsanaanaysaa waxa aad mar walba soo turtana qanaacada iyo wanaagga weeyaan qodobka labaad walaalayaal oo muhiimka waxa weeyaan labadii ku dhashay hadday maanta nool yihiin asal waaye iyaga wac farxaddaada la wadaag u hambaliyee la xiriir haddii ilaahay wax kuu dhiibo hanti ku siiyeyna hadiyad u dir hadday xoolo walba ay haystaan oo milyaneer ay yihiin shilinkaa u soo dirtay ka jecel yihiin mar walba la xiriir waalidka sidoo kale dadka faraca ah oo aad wada dhalateen oo dhiigga inay ka dhexeeya oo qaraabada aad tihiin ama aad isku dhaxdeen ama aad dhashay fadlan wac farxadda la wadaag u sheeg si gaar ahaaneed dadka ehelka ah oo qaraabada ah oo waalidka oo walaalada ah haddii mid ka mida uu dhibaato ku sugan yahay xag caafimaad xag hanti xag maaragtay dhaqaale macnaheedu ama maaragtay caafimaad wax walba situation oo maaragtay murugo leh dhimasho haddii ku imaato geeri oo qof ka dhinto fadlan la wadaag u sheeg cudurka iyo cayrnimada maaragtay inay dhammaan doonaan oo caafimaad heli doono oo hanti heli doono oo cilmi heli doono oo haddii iskuul ku jiro oo kale wax baranayo oo kale midalan aad dhahda maaragtay waad qalin jabin doontaa waad ka bixi doontaa maaragtay dhiira gelisid arrintaa la wadaag u sheeg say bishaan barakeysan u dhalatay ay noogu bilaabatay oo u baxday inay balaayo walba u bixi doono oo haddii iskuul ku jiro u dhammayn doono oo khayr iyo wanaag geli farxad geli qalbigaa tiiraayeysan oo murugaysan xagga murugta waxaa u beddeshaa farxad la wadaag qodobka saddexaad waxa weeyaan hadduu jiro qof macrifo qadiima ayna ka dhexayso oo fadli dheerna ayna ka dhexeeyo qofkaas oo intaad dhallaanka ahayd wax fadli oo wanaag kuu soo qabta uu jiro fadlan farxadda la wadaag bilow adiga wicitaanka inaa wacdo oo aad kool garayso adiga samee fadlan oo wac oo waxaa la wadaagtaa wanaagani soo dhex maray la wadaag qofkaas wuxuu noqon karaa qof adiga qof ahaan wax kuu soo qabtay intaa yarayd ama qoyskiina qof aad qadariso wax u soo qabtay oo macrifo qadiima inaga dhexayso waxaa la yidhaahdaa mararka qaarkood qofkaad macrifada qadiimka inaga dhexayso baa wuxuu kaaga fiicnaan karaaba qof aad wada dhalateen macrifatun qadiimatun khayrun min annasab qofkaa u sheeg fadligii uu kuu sameeyey taabaa farxad gelinayso wuxuuna ogsoon yahay uu ogsoonaanayaa oo uu soo xasuusanayaa inuu yahay qof difference sameeyey qof noloshiisa qof isbeddel ku sameeyey ama qoys ayuu noqonayaa haddaad arrintaad ku sifowdana dee waxaa noqonaysaa qof fulinaya fariintii rasuulka sala allahu calayhi wasallam oo uu yidhi man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuhu war qof wanaag hadduu inii galo u abaalguda qofkaas qofkuu raba ha noqdo gaal iyo muslimba ha noqdo maaragtay qof intaa iskuulka dhiganaysay macallin kuu soo noqday wax kusoo bar ha ahaado ama macallin dugsi kuu soo ha ahaado ama daris kula ha ahaado ama mid maaragtay aan waxba kula wadaagin oo diin iyo dhaqan kale kula wadaagin oo wanaagga ku ahaada ama qof muslim ha ahaado hadduu muslim kugu noqdo macallin waajibkaadu uu sii laba jibaarmaya waa inaad markaas aad samaysaa weeyaan oo aad maaragtay wanaagga ugu guddaa oo haddaa xitaa dhaqaale ah heli kartana aad dhahdaa dhaqaalaha aasisa ilaahay gacantaada geliya haddii aad weydana jazaaka allahu khayra dheh suu rasuulka la sheegay hiya alablaqu iyadaa xeel dheer iyadaa maaragtay wax badan maaragtay ka fiican oo la caddayntaa wax badan ka fiican oo maaragtay ku tusinaysa maaragtay hiil ku tusinaysa iyo maaragtay garasho ku tusinaysa iyo garaadkaadaba marka saas samee walaalow qofka wanaag kuu soo galay sidoo kale hadduu jiro qof ay dhib ini soo dhex martay ha dhowaada ha dheeraado waana arrintaana dadka badankooda way ku adag tahay waana arrin adigana farxad aad ku dareemayso qofka walaalkaana farxad ku dareemayo maantana aad farxad wada wadaagaysaan fursad fiican oo qaaliyana ah qof ay dhib ini soo dhex martay maanta telefoonka qaad wac fadlan u sheeg inaad ciid mubaarak dheh
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ده عفي علي مسامح ده isagana intoo kale wanaag ku dhahaya qalbigana wanaag buu ku sameeynaya adaana qofka gobta ah gobanimadan ay dhan ay ku soo aruureys adaan noqonaysid waana fursad inay ku dhaafin ay fiican tahay fadlan arinta tijaabi oo fiir qiimaha ay leedahay wax maanta qof wax oo dhib ah in dhex mareen dhibta inta rabta la ekaato wax yar oo fudud idinkoo maalin banoon ciyaara isku dhacdaan ha ahaato ama idinkoo maalin maartay meel xafladooda jooga maartay si isku afgaran wadaan ha noqoto ama meel ka wada shaqeynaysan organization ha noqoto ama maartay qoys mar ama maartay ama qabiilkooda kulmayo mar isqabateen ha ahaato wax allaale waxay noqoto guur isku qabta ganacsi isku qabta waxyaalaha noqotaba ha yaraat ha weynaato fadlan arintaas fiiri farxadii ka imaata iyo wanaag ka imaadana ada iskale wa khayruhum alladhi bada qofka mar walba bilaaba ayaa ciziga iyo sharafta iskale ma aha inuu qofka qof wiiga u yahay oo jiricsan oo maartay laga roon yahay ma aha sharafta iyo cizada waxa weeye iyo qiimaha qofka inuu isaga wicitaanka uu bilaabo oo isaga uu waco oo maartay qofka cafis weydiisto war wallahi taasi karaamada ku jirta qofka bilaabana sharafta leh maanta caalam waxaan ku noolnahay oo aan joognaa mesela hadda wadankan Mareykanka aan joogno siyaasadooda dhan waa bedeleen new strategy iyo new plan la imaadeen ay caalamka inta kale kula dhaqmayaan waxay isticmaaleen ay wadaan fikrad ah dadka enemigaada aha inaad friend ka dhigto saaxiiba ka dhigto cadawgaada saaxiib ka dhig waana murti cajiiba oo Soomaalida ku maamaado wax ka murti macaan oo ka murti fiican mala anaga naga fiican waxay dhahan cadawgaada caana macaan la siiyaa cadawgoodii soo dhaweynayaan oo intay White House loogu yeero ayaa cash sharaf iyo caana macaan iyo biyo qabow iyo cunto la siinaya gogol fiican oo qurux badan loo dhigaya oo maar safaaradii loo kala furaya China oo intaas Cuba dhowr iyo 50 sano waa China quruumay socota arintooda oo maartay siyaasadda lagu kala duwan yahay mabaadi'da lagu kala duwan yahay annagoo dad muslimiina oo Soomaaliya oo muuqaalkeenu mid yahay oo magacayagu mid yahay oo diintayadu mid tahay oo maartay isku wada dhaqan dhow oo isku dhaqan ah macnaheedu oo dhiig iyo dhalasho naga dhaxeeyo oo xigta iyo maartay xid wada ah inaan maartay maalin waxna dhaxmaray aan maartay isku tanaasulu weyno oo iswici weyno oo is arki weyno waa xadaarad darro waaye waana dib maartay meeshaan hadda aan joogno inaan dhigtay waaye haddaynan ka weynaanin oo inaan ka kobcin oo maartay kuwa ganacsiga leh ee maartay isku imaan oo kuwa guur ka dhaxeeya isku imaan oo kuwa maartay dawladda iyo xiriirka maartay caamka oo bulshada adeega ka dhaxeeyaan isku imaanin isku tanaasulin iskaraamaynin is sharfin oo waxa difference-ga dhinaca la iska dhigin wax waa noo dhaxayn karaan laakiin intana midaysa ayaa ka badan intana kala deysa marka maanta waa maalin ciid qof walba waxaan aaminsanahay haddaan saan ku dhaqanno inaan cizadeena iyo karaamadeena iyo sharafteena ay soo noqonayso dawladnimadeena ay soo noqonayso dadnimadeena ay soo noqonayso xadaaraddeena oo dhismayso waa walaalkeen Cabdinuur Aadan Xayir oo waxa in kaga tagay maartay salaanta islaamka farxad iyo wanaag ciid wanaagsan ku ciida sameey caafimaad ku ciida cimri dheer baan maartay aan rabbi ka baryayna ay cibaado suuban ilaahay subhanahu wa ta'ala bisheeda wanaag hanagu geeyo anagoo diinteena dhaqankeena haysana wax inoo kordheen cilmi aqli amal maartay hanti wax walba inoo kordheen barwaaqaya bash wa salaamantiin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh